waxaan filayaa oo baaqan uu kow ka yahay in dib loo fiiriyo waddanku meesha uu ku socdo xaaladda uu ku jiro ma doonayno in looga sii dara waxaan rabnaa in wanaag iyo wada shaqayn iyo isxaqdhowr iyo is-ixtiraam dib loogu soo celiyo hoggaanka sare ee waddanku hadduu garan waayey mas-uuliyadda saaran waxay tahay wuxuu u baahan yahay in loo sheego oo dhaqan iyo xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo axsaab intuba cod dheer iyo cod gaaban ay ugu sheegaan waddanku xaaladda uu ku jiro sida uu yahay meesha uu u socdo taariikhda uu soo maray in la iska dhaadhiciyo oo loo sheego qof waliba waxa uu leeyahay waxay tahay ay noqoto inaan waddanku ku dhici karaynin gabidhac iyo duulduul iyo dhibaato meelo badan ku timaada inayna noqon karayn waddankan in lagu maamulo uma talagelin maanta inaan hadal badan idhaahdo sababtoo warku warqaduhu ku yaallaan waxaan rabay inaan wax yar ka idhaahdo waxaan arkayay shalay social media la iiga tusaano aada uma galeen waraaq uu soo qoray wasiirka maaliyaddu oo xisaab celin laga rabo dowlad goboleedyada taasoo loo tusayo dowladdu xisaabihii kale way soo dhammaysay inay hadda dowlad goboleedyada la xisaabtamayso aad bay u fiicnaan lahay dowladdu intay wax bixiso inay xisaabtanto waxaana noona rabnaa si official ah oo dowladda u weydiinayna inay through social media noogu soo gudbiso waxa ayna siisay annaguna xisaab celinta waxaan ka samaynaynaa social media wixii ayna siisay waxaan ku bixin waxaan ka hadlayna marba waxay ahayd waxa danta guud aan isugu dhimaano Jubbaland waxay qabtaa xawaal gaara iyo duruuf gaara Hirshabelle sidoo kale Puntland sidoo kale laakiin taa in meel la iska dhigo lana garab wada hadlo waxa danta guud dalku ay tahay in ka wada dhaxeeya iyo sidii loo sixi lahaa goluhu marka annagoo soo saaray warmutiyeedkan haddana wuxuu diyaar u yahay sida odayaashu ay ka sharqabiyeen in aanu u dadaalo u sacyino sidii waddanka dhibta looga saari lahaa wixii lagu heshiiyeyna dhanka dowlad goboleedyadu ay u fulin lahaayeen mushkiladdu waxay tahay runtii haddii mabaadi'da aasaasiga ee lagu heshiiyey oo dastuurku ka mid yahay oo federalismku ka mid yahay sida ay tahay letter and spirit niyad iyo qoraalba loogu wada shaqeeyo waxa hadda aan ka hadlayno iyo dhibtaan ka hadlaynaa ma timaatay waxaan u baahanay marka annagu waxaan nahay aboorkii aqalada waaweyn dhisahayaan nahay hadhowna waxaas fiican oo soo baxa waa la yaabi doonaa markii aan kulli wada dhisno arrimaha oo dhan waxaa maaragtay aada iyo aada muhiim u ah in aan ka shaqayno dalkayga horumarintiisa dowladda federaalkana waxaan ka rabnaa inay sidaa u niyeysato faragelin badan iyo dumin badan iyo dhib badan baa naga haysta waxay uga jeedaanna garan mayno danna uma aha 2 sanaa la sii marayaa 2 sano hore wax la qabtay ma arko 2 sano dambe dee waa ayagu election iyo maaragtay yaa la iska daba carabayaa mooye shaqo badan ay tahasan inay dhici doonto u malayn maayo haddaan la isdaba qaban oo aanaan hadda inta ka tashanno annagii ayagu gacmaha isqabsanno annaan dalka maaragtay ku dabaalin dariiq fiican aan u raadin waxaa noo muuqata in federaalka in lagu dheelo la rabo runtii la soo sheegaa la rabaa waxaan u aragnaa arrinta ayada haddii federaalka la goosto in lagu dheelo waxaan u arkaynaa inay Soomaaliya meesheedii meel ka xun ay ku noqonayso shabaabkuna aanan tabar loo helaynin marka anagu waxaan qabnaa in federalismka la hirgeliyo dadka Soomaaliyeed ayaga la imaan doono markii kuwan dawladiidka laga qaado haddii federaalku ku xun yahay ayaga afti iyo wax kaga noqon doono laakiin inay qolo inta fikirto inay federaalka ay hagardaameyso si federaalka loo naco ay u fikirto ana waxaan aaminsanahay arrintaas arrin dhibaato ay noqonaysaa dalkan waxay ku noqonaysaa lugooyo kuwa dawladiidka haddaan lala dagaalamin oo sidaa hadda ay yihiin aan loola dagaalamin anaga dawladda dirisa lama diriro hayno ilma anaga naga caasi garoobay iyo kuwa ayaga u yeerteen oo duurka ku jira inaan la dirinaa la rabaa marka dagaalkii kuwaas lagula diriri lahaa ani waxaan aaminsanahay lama hayo dagaalkaas wuxuu noqon karaa sida ayagaba ay baadiyaha u lugeeyaan ciidamo la lugeeyo meelaha biyaha ku jiro iyo jidadka iyo meel walba tuulooyinka taagan in la helo waa